Tababarkan ayaa loo furay ergada xubnaha Golaha Deegaanka degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee soo dooranaysa xildhibaanada Golaha Deegaanka, iyadoona sidoo kale ay socoto diiwaangelinta ergada iyo musharaxiinta xildhibaanada Golaha Deegaanka degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xubnahan ayaa la baray qaabka ay u dooranayaan xubinta ay doonayaan inay ka mid noqoto Golaha Deegaanka degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyo habraacyada ay ku dooranayaan qofka ay doonayaan in iyaga uu matalo. Waxaana sidoo kale socotay diiwaangelinta musharaxiinta xildhibaanada Golaha Deegaanka, iyadoona si habsami leh ay kaga socoto degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xubnaha tababarkan loo furay oo la hadalnay ayaa waxa ay noo sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin tababarkan, isla markaana faham buuxa ay ka haystaan qaabka ay u dhaceyso doorashada Golaha Deegaanka degmada Maadai ee dowlad goboleedka Hiirshabelle. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Shabakada Wararka ee Jowhar Media, Maadai, Shabeellaha Dhexe.